صلاح الدين الأيوبي وحاو داشي سنة كيكون بقول تطبيق يصدن كي مقالة تكرياتي دالك عراق. صلاح الدين وحاو كسو جدا قويس مدبدا مامولي بغداد إيو هريريه دا أبينا وحاوها نور الدين أو كوعان بحي في دين تمامل كإسلامك. sanadkii 1116 taariikhda hijriyada ciidamadii shiicada oo garabsanaya Crusadesku waxa ay duulaan ku ekeeyeen Masar oo ay markiiba gacanta ku dhigeen waxayna hirgeliyeen dawlad ay ku magacaabeen Faatimiyiin. Crusadeska iyo Faatimiyiintiba waxa ay bahoobeen intii u dhaxaysay 1164 ilaa 1167. صلاح الدين أبيه نور الدين وحاو بلاوي أورنتا عيدا الحوغل وقعنتا كوديغا مصر دقالكاسنا وحاو لما قعبهاي حرب البابين وحونا بلاوي السنة كي كون بقولية تدبئي لحنكي عيدا كي كروسيدسكا وحا باندولوها جيروسالم حالكا نور الدين ويل كيسي صلاح الدين وودورتيا باندولي dagaalka iyadoo si toos ah aan wali loo gudagelin Nuur الدين ayaa dhintay si kadiisana waxa xukunka muslimiinta iyo dagaalka uu la wareegay Salaah الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي weerarkiisii uu ku qabsanay Masar waxa uu ka soo bilaabay Syria sanadkii 1167 waxa si toos ah u bilowday dagaalkii Xarbul Baabi libinta iyo guushuna waxay raacday hogaamiyihii da'da yar ee reer Baghdad Salaah الدين الأيوبي. waxa uu ka mid ahaa geesiyada ugu aqliga badan ee Soomara muslimiinta waxa uu furtay in ka badan 80 magaalo oo Masiixiyiin ah xukunkiisuna waxa uu ahaa mid ku faafa dacal ilaa dacal dunida oo dhan. waxa uu ahaa soo majeestaan gaban cadawgiisana ku qaabila seefta caaradeeda waxa uu ahaa horgaan guushu weyn u tahay. صلاح الدين مركله waxa uu duulaan ku qaaday imaaradii Victoria sanadkii 1187 ciidan balaaran oo muslimiina jihaadkuna laabta ugu jiro ayaa gacanta ku dhigtay Victoria. dagaaladii iyo duulimaadyadii Salaah الدين uu qaadiyay waxay ahaayeen kuwo gilgilay oo cabsi weyn ku abuuray boqortooyooyinkii Romania, Albania, Georgia iyo Kasaarla oo ay xaaladoodu ahayd bari ayuu Salaah الدين iman. صلاح الدين الأيوبي وحاو هايفتين كجهاد كمسلمين تيسو مري قرنية دي دحي. صلاح الدين وحاو هاشخص عبادو إيعالا كعبسي ببضان oo gaalada cadow arkayay waa taariikh lama ilaawana oo baal dahab ka shay. صلاح الدين الأيوبي horgaankii muslimiinta awoodiisii iyo naftiisiiba waxa uu u huray si ay dadka muslimiinta ah mid ay u ahaadaan cadowgoodana hal meel ay uga soo wada jeestaan. saaduna socoto barnaamijyada dambe subscribe garee.